so iyaga waxay ku qiyaaseen gaalada ama reer galbeedkii waxay ku qiyaaseen inay tahay haweeneyda dunida ugu fool xumeed laakiin sheekadeeda markii aan kaaga sheekeeyo dhamaadka sheekada waxaa qiri doontaa inay ahayd haweeneyda dunida ugu quruxda badneed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys كسر هذا مركلة مقال عصف هالكن نقل سعتها ورش فيلم سخوفي ذي الهادلاين ولكن الريلاش وياهن والقبا قلت أنا هذا فيديو هذا هرنا لجكت وما سنت هذا نقول سبتها بليس وحكا عصننا سبسكرايب كنا نص هرتكوس ونور ديرجلين لايك تم مقال كإيميل في عن جارسين إنسا شير تنون وش فكرتها كومنت نحن نقول هذا كرتها رأيي جوا صرنا وين نوحبون النقطة. اوكي maanta muuqaalkeena aan ka hadlayno waxa weeye saaid ka balan qaadi waxaan gali doonaa insha Allah taala muuqaalo aan kaga hadli doono dhacdooyin caalamka ka dhacay taariikho iyo sidoo kale sida aan ku soo qoray community-ga muuqaalo aan ka gaxlay macnaha kuwa cabsi inaan soo bandhigo reaction ka bixiyo qaarkiin waa cadeyseen okay aan tijaabinaya marka saa u daawataan laakiin maanta muuqaalkeena waxaan kaga hadlaynaa mawduucyada ka duwan oo ah taariikhda ama sheeko yar aan ka arkay inaan idila wadaaga jeclaaday qaarkiin inaan aragteen ma aqaan haweeneydii dunida ugu foosho xumeed haweeneyda dunida ugu foosho xumeed markaan ku leeyahay waa dhaqanka ama caadada ay reer galbeedka isticmaaleen ee ku micneeyeen gabar qaab dhismeedka jirkeeda uu ka duunayo dadka kale so iyaga waxay ku qiyaaseen gaalada ama reer galbeedkii waxay ku qiyaaseen inay tahay haweeneyda dunida ugu fool xumeed laakiin sheekadeeda markii aan kaaga sheekeeyo dhamaadka sheekada waxaa qiri doontaa inay ahayd haweeneyda dunida ugu quruxda badneed. sheekada maanta aan sheegayno waxay ku saabsan tahay gabar yiraahda Mary Anna oo u dhalatay dalka England gaar ahaan waxay ku dhalatay magaalada London barigeeda magaalada yiraahdo Blasto ayay ku dhalatay 1874. Mary waxaa la dhashtay ama markaas ay maxaa yiraahdaa qoyskooda ka koobnaa 8 iyada iyo 8 kale oo walaalo macna iyada 9 ku aad laakiin qoyskooda ayaa ahaa qoys aad u danyar ah isla markaasna aan haysan dhaqaale ku filan sidoo kale Mary nolosheedii wuxuu ku soo kortay qoys faqri ah ama faqirnimo ay ku soo kortay si haddaba noloshaas ay uga gaashaamato gabadhaas waxa ay sameysay inay dadaasho waxbarashadeeda ku dadaasho isla markaasna waxay ku guuleysatay inay noqoto kalkaaliso oo markaa dhakhtarka maxaa la yiraahdaa magaalada ay degneed ayay waxay ka noqotay kalkaaliso markii da'da 9 sanaad ay gaartay waxay guursatay nin la yiraahdo Thomas Bevan kaas ayayna waxay u dhashay ninkii waxayna u dhashay 4 caruur ah ninka oo asna ahaa nin aad u danyar ah maadaama iyadana danyar ahayd haddana laakiin waxay ahaayeen qoys noloshooda ku filan oo maareeyo haddaba xagee ka bilaabanaysaa sheekada waxay ka bilaabanaysaa guurkeedii iyo caruur dhalideeda kadib markii ay ilmo dhashay 4 caruur ay u dhashay ninkeeda waxaa dhacday Mary in uu kula soo darso xanuunkaasoo gabi ahaan bedelay jirkeeda macnaha xanuunka qofka uu ku dhaco waa hormoonska jirka korsiimihiisa ayaa aad u badanayo wax walba oo jirkeeda ahaana waxay u korayaan si xawli ah lafihii oo gacmaha iyo lugaha si xawli ay u korayaan wajigeeda aad u weynaanaya timo ay ku yeelanaysaa macnaha waxay noqotay qof markaas aad xajmigeeda u weynaado ama xajmigeeda u koro waxaa la sheegaa Mary sawirkeeda markii dhalinyarada ahayd la qaaday in ay ahayd gabadh aad u qurux badan laakiin xanuunkaas kadib inay noqotay qofta maxaa la yiraahdaa muuqaal ahaan qofka markuu ka soo horbaxo aad uga argagaxayo because dabiiciyan qofka bini'aadanka muuqaalkiisa waxa looga bartay wax yar oo macnaha waa siman laakiin xanuunka ama hormoonskan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jirka ugu talagalay inay lafaha ama jirka uu koriyo ayaa marmarka qaar waxa dhici karta xanuuno inay ku dhacaan kaas oo qofka jirkiisa oo koro si aan qeyr caadi ahayn dhowr qof laga yaabo haddaad ka raadisid maxaa la yiraahdaa social media inaad ka aragtid noocaas oo kale qaarkiin xataa inaad aragteen waa laga yaabaa so gabadha waxay keentay in xanuunka markuu ku dhaco ay ka bixi weyso guri xanuunka markuu ku dhaco ee kala kulanta bulshada ay ku dhex nooleen aflagaado iyo takoorid iyo in dadka lagu maadsado ama ay noqoto qof caruurta markaas ay ka cabsadaan Mary iyadoo xaaladda ku sugan xanuunka la soo darsay dhaqaale fiican ay haysanin ee dhakhtar ku tagto isla markaasna ay xanuunkaas ay iskaga daaweyso ayaa haddana caqabadii waxa ugu sii darsantay in ninkeedii uu ka geeriyooday ninkeedii ayaa marka hore u soo shaqeynayay shaqada maxalliga qutul daruuriga caruurta iyo waxbarashadooda ninka soo dhicinayay ninkeedu ahaa laakiin ninkeedii marka uu dhintay 11 sano markay wada noolaayeen kadib Mary waxay soo istaagtay marxaladii ugu xumeed xanuunkii waxa ugu soo biiray in mas'uuliyadii ee caruurta iyada ay soo wada kortay haddii ay shaqaysan lahayd Mary waxay noqotay qof xanuunka dartiisa ama wajigeeda laga cabsanayo dartiisa ee shaqooyin badan ku weysay dhowr shaqo isku dayday waxa la yiraahdo kuma siin karno customer-ka ama client-yada noo imaan lahaa ayaa naga kala cararayo waxay la kulantay midab koor aad u xun
waxay la kulantay dhibaato aad u badan. Laakiin Mary oo ah hooyo markaaseeto ahayd hooyo geesiyad ah, yaraanteedina sida ay soo sheegay ahayd qof adag ayaa waxay go'aansatay wax inay sameyso. maalin maalmaha ka mid ah waxaan dhihi karaa waa nasiibna waan dhihi karaa nasiib xumana waa noqon kartaa ayaa waxay aragtay journaal oo ku qoran yahay xayeysiin in la doonayo tartan la qabanayo oo ah haweeneyda ugu foosha xun ee magaalada London. run ahaantii Mary may jeclaysan inay ka qayb gasho tartankaas, laakiin danta ayaa ku kaliftay oo maxaa yeelay guriga waxaa u fadhisa 4 caruur oo u baahan waxay cunaan, waxay cabaan, waxay xirtaan iyo sidoo kale waxbarashadooda. mana jirin cid kale oo ka caawinaysa. Yurubta hadda ciyaarta bixisana ma ahayn xilliga idin sheegayo waa 1800 iyo baafti weeyaan meelaha. marka waxay ahayd iyadoo shaqaysato isla markaas ay noqoto maxaa la yiraahdaa in hooyo marka caruurtii difaacdo. waxa ay tagtay photo ay sawir ka soo gashay, sawirkii ay codsiga ku gudbisay. runaantii sawirkii laga qaaday ayaa qoladii tartanka qabanaysay cajibiyay, isla markaasna Mary waxa ay noqotay in loo xusho markaas haweeneyda ka qayb galayso tartankaas. tartankii ayay ku guuleysatay, waxa ay noqotay markaas haweeneydii ugu foosho xumeed. Mary kaliya sheekadeeda waxaa laga ogaa dalka Ingiriiska, goboladiisa ayay tartamo ama bandhigyo ku qabatay. waaga ma jirin maxaa la yiraahdaa waxaan social media ha inta la duubo oo meel la soo dhigo ma jirin. riwaayadaha iyo filimada laftirkooda waa xala geeni jiray, marba magaalo la geyn jiray. so sida tiyaatarada ama meelaha bandhig carweedada dadka isugu yimaadaan ayaa Mary la geyn jiray marba magaalo Ingiriiska ka mid ah, taasoo dadka u soo daawasho tagi jireen. waxayna kala kulmi jirtay aflagaado waxyaabo badan, laakiin waxa soo dhan ay arkaysay dhag jilaq ma siin Mary waxa inuu ku dadaalaysa kaliya inay eegato hadafkeedu ah sidii lacag ku heli lahayd, caruurteedana u qarsan lahayd. tartamadii ama maxaa la yiraahdaa goobihii bandhigyadii dalka Ingiriiska markii la soo wada wareejiyay iyo qaybo ka mid ah Yurub. Mary marka ugu dambeyn Mary waxay heshay fursad ay kaga qayb galayso ama shirkad ay ku geynayso in dadka reer Mareykan markan way ka soo gudubtay Yurubtay in adduunka oo dhan la gaarsiin noqotay. marka waxay fursad u heshay inay tagto Mareykanka 1920kii. waxa ayna raacday markaas ka baxayay magaalada London isla markaasna ku xiranayay dalka Mareykanka. Mary ayaa waxay shooyadeeda ka sii wadatay dalka Mareykanka iyadoo wali aflagaadadii caaydi iyo meel walba jaraa'id walba oo Mareykanka ka soo baxay, New York ka soo baxay, jaraa'id walba waxa ku sawirnaa sawirkeeda page kore lacagta adduunka ugu foosho xun oo loo soo daawasho tagay. lacagaha laga arooriyay ayaa Mary qaybteeda laga siinayay iyadoo isla markaasna ku dadaalayso in caruurteeda wax ku barto. nasiib wanaag Mary lacagaha ay aroorisay waxay ku kafaysay in caruurteeda ku geyso iskuulkaas oo hooy kan lagu xareeyo caruurta. maadaama iyada ay la joogin waxay geysay iskuul caruurta boarding ay seexdaan, laakiin qarashkiisa aad u badnaa. iyada ayaa dabiri jirtay qarashkii kaga soo xarooda. waxa ay ku soo heshay maxaa la yiraahdaa wajigeeda ama maxaa la yiraahdaa qaab dhismeedkeeda dadka markaas ku micnaynaya inay tahay haweeneydii adduunka ugu foosho xumeed. 1925kii markay dhowr shooyo ku soo qaatay dalka Mareykanka ayay Yurub ku soo laabatay sida la sheegay. sidoo kale Mary waxaa la sheegay lacag badan ay ka sameysay laftirkeeda inay marka dambe ku qasaartay caaydi aflagaadadii iyo dhibaatooyinkii badanaa ay dadka u geysanayeen. Mary ay confuse ka qaaday markaasna ay noqotay xataa inay noqoto hooyo markaas ugu dambeyntii alcoholic noqoto. waxa ayna geeriyootay sida la sheegayo 1933. dadka xilliga joogay Mary waxay u yaqaaneen haweeneyda adduunka ugu foosho xun. hadda laftirkeeda hadda Google gelisid iyada oo lagu soo qabanayaa haddana dad kale soo bixin. laakiin haddii aad fiirisid aad xagga qalbiyan bini'aadanimo ka fiirisid Mary waxay noqon lahayd haweeneyda adduunka ugu quruxda badan. maxaa yeelay ay aflagaado iyo dhibaato walba oo Mary soo gaaraysay waxay u gashay ama maxaa la yiraahdaa u qaadatay si caruurteeda nafsadeeda u badbaadiso. taas ayaan dhihi karnaa waa dabeecadda rasmiga ah ee lagu yaqaan hooyo. inta doonta ha ahaato gaal ha ahaato muslim ha noqoto, hooyo waxa weeyaan dabeecadda rasmiga ee lagu yaqaano waa ubadkeeda. xataa xayawaanka xataa fiiri waxa weeyaan waa ubadkeeda inay ka hormarisaa wax walba oo danteeda ah, wax walba oo mustaqbalkeeda, wax walba ay jeceshahay inay hooyo ka hormarisaa. farxadda ubadkeeda, korsiimada ubadkeeda ay wax soo sameynaysaa. sheekada Mary marka maxaan ka qaadan karnaa? maxaa idin kugu soo qaatay? ka qaadan karnaa waxay tahay qof walba oo duruufaysan ma aha duruufta in looga faa'iideysto. qof walba oo maxaa la yiraahdaa dhibaataysan ha u maleyn inuu doqon yahay. waxaa jirto duruuf dhibaato ku kalifaysa waxaan inuu sameeyo. haddii aad aragtid qof maxaa la yiraahdaa waxyaabo nafsadaada adiga ay ku qancaynin sameynayo
ogow inay jirto dan ku kala fayso ha iska go'aamin kaliya inuu qofkaas waxaas inuu qof xun yahay haddaba Mary dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay tahay haweeneyda dunida ugu quruxda badneed sheekadeena in la wadaagi lahaa intaas ay hataa sheekooyinka noocan oo kale ka heshaan waxaan ka codsanayaa inaad like soo maxaa la yiraahdaa muuqaalka like badan saartaan commentiga nagu soo qortaan inaan soo badiyo sidoo kaleeto qaab soo jeedinteeda hadaa ka hesheen waa okay haddaan speedka iyo ogaay arabtaa in wax ka yara dhimana iyadana naftirkeeda waxaan leeyahay commentiga igu soo qora insha Allah ta'ala muuqaalka xiga waxaan jeclaa inuu noqdo muuqaalka idinka balan qaada cabsida aha si diyaariye inta ugu noqdo muuqaalka xiga waxaan idinka tagayaa si ay nabadgelyo like commentiga share iyo subscribe inta wana dhiiri gelin bye bye